waxaan rabaa inaan bulshada u sheego inay berrito baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya ay mooshin keeni doonaan baarlamaanka ay kaga soo horjeesanayaan heshiiskii dowladda Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliland ay wada galeen ee ku saabsanaa saldhigga Berbera. waxaan marka hore leenahay Soomaaliya waa inay fahamtaa Soomaaliland inay waddan gooniye tahay arrimaheedana ay iyadu maamulanayso harana aanay cid ugu daba fadhiisan hadeerna aanay cid daba fadhiisanaynin wax ka xanibaya ka joojinaya toona aanay jirin. waxa berrito iyana banaanbax ama shir lagaga soo horjeedo saldhigga hudheelka weyn ee Mansoor ka ballansaday xisbiga wadani. waa taariikh isku mid ah oo isu eg in xamarna laga abaabulo mooshin ka dhan ah heshiiska isla mooshinkaas oo kalena uu ka socdo berrito ka dhici doono hudheelka Mansoor uu ka dhici doono oo ay ka dambeeyaan xisbiga wadani. maanaan garan waxa isku beegay iyo sida ay u kulmeen labada arrimood sida u kulmeen maanaan garan. waxaanu leenahay ummadda reer Somaliland wixii danteedu ku jirto ayuunbay xukuumaddu ka shaqaynaysaa cidina ugama leh jeclo badna. waxaanay ku fiican tahay wixii madmadow ee yimaada in gudaheena lagaga wada hadlo. taasaanu annagu dhiiri gelinaynaa cid walbana kula talinaynaa taasaana lagu soconaya haddii la yidhaahdo heshiiskaasuna waa heshiis meel maray. ka hadalkiisa iyo ka daba hadalkiisa ciddii doonaysaba ha ahaatee wax ka bedelmaya ma jira.